السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad ayaa inii salaamay asxaabteyda iga xidhan barteyda youtube-ka. fadlan haddaad hore iila joogtay aad baa u mahadsantahay. hadda igu soo biirtidna subscribe-ka ha iga ilaawin. soo dhawow, gacmo furan ku soo dhawow. maanta mawduucaan usoo galay ama rabo inaan ka hadlo wuxuu yahay kitaabka qur-aanka. dad badan waxaa jira cajis uu ka saaran yahay ama ii sheegay sanado fara badan baan akhrin oo kitaabka meel guriga uu dhex yaalo, ama dad ii sheegay aanba daneynba ayaa jira. marka dee qur-aankuna waa noloshii oo dhan, yacni haddaad fahantid oo maalin walba akhrisid ama habeen barhkii intaa soo kacay aad akhrisid noloshaada uu ka mid noqdo, waxaad ka helaysaa xasilooni iyo degnaansho iyo waxaadan ka helin bili aadanka ayaad ka helaysaa. haddii aad qur-aanka laasintid waxaa arkaysaa noloshii oo kuu furfurmatay, waxyaalo badan oo ii sheegay iska kaa bedelay. waxaa arkaysaa adoo qur-aanka jeclaaday. markaa sir yar ayaan la wadaagayaa siduu qur-aanka kugu fududaado ama markaa soo qaaday aadan u hurdoon. dad waxaa jira hurdooda xilliga marka ay kitaabkaba ay soo qaadaan, sidaa daraaddeed ama uu cajas uu kaa saaran yahay, yacni culays uu kaa saaran yahay. cajaska waxaa la dhahaa culays uu kaa saaran yahay. waxaad samayn kartaa marka hore waa weysweysan kartaa. sir ayaan kula wadaagayaa taasoo ah waxaad samayn kartaa waa soo weysweysanaysaa. markaad soo weysweysatid waxay la mid tahay inay xijaaban tahay oo shaydaankuusan kuu soo dhowaan karin. sababtoo waxa kuu diidaya inaad qur-aanka akhrisid ama guriga uu kaliya uu kuu yaalla aan noloshaada ku darin waa shaydaan. shaydaankana markaad soo weysweysatid waa xijaabantahay. marka hore soo weysweysa, kabacdi waxaad iska naartaa shaydaanka. kabacdi waxaad maalin walba aad joogtaysaa jis inta aad ka taqaanid joogte. waxaad dareemaysaa degnaansho fara badan iyo raaxo fara badan aadan hore u arki jirin. bal hadda soo tijaabadan way la soo waday qaybta commentiga waxa aad ka dareentid kitaabkeena qur-aanka ah ee kariimka ah. assalaamu calaykum. fadlan subscribe ha iga ilaawin, iguna caawi. waxaana leeyahay soo dhawaada asxaabtayda. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.